قفور تاقنا اسك بدل فودت كذا ويقلت كان عشر بونك وهاندونا مسير كان يري مير كان عشو هشا كل لا ونقف اهم وانبيا بيو يمت بانقلو اهوي بان إيري ولي ماذا قوسا ميا معنى مالي هذا اسك قوسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد Soomaaliyeed bulshaweynta meel walba caalamka ay ka joogaan salaamantiin salaan kadib waxaan jeclahay arinta maanta ka dhacday Muqdisho inaan xoogaa idinkaga taataabano marka la yaabka caalamka miya iyo anaga kaliya miya ma aqaan walaa sida ay tahay waa wax la yaabo ama la qashuuco waxyaalaha la yaabo ama aad ku qashuucayso waxaa ka mid ah koow in macnaa oo markii koow aad aragto dadkaaga ama Soomaalida bulshaweynta aad ka soo jeedid sida ay ku dhaqmayaan marka aad aragto xoogaa waxaa ku galay niyad aan dhamaad lahayn niyadkaasna waxaa u sababa oo ummadda niyadda ka dilay waa horjoogayaasha ummadda Soomaaliyeed horjoogow adigu maxaad ahayd rag madaxweyne isku sheegay afar sano soo shaqeeyay oo shaqadoodii la arkay oo waxay galaan waxay gudaan la arkay ee wadanka hor u kicin waayay amaanta waxay ku dhahaan haddana waxaan nahay maxal dhahaa musharaxiinaan nahay ha ahaadaano musharaxin walba calafkiisu cunaa wax xoog lagu helaayo meesha ma yaalo insha Allah saa u maleenayo idinkan aad ogtiin ummadan ay ku qanacsan tahay qof walba maalintii cad iyo biyo u ahaa wuxuu mar lahay maalintaas loo soo katay insha Allah kii madaxweynenimo koraayo kii aan koreyn kulli markaas la soo qoray marka waxyaalaha ay ku raadiyaan mucaaradka ay ku raadinayaan xoog iyo akhli iyo ummadda Soomaaliyeed oo lagu soo gabanayo iyo shacabka oo mar walba la soo hadal qaadayo oo dhahay macnaa hor u socda kaaliya soo banaan baxa kaaliya ani la dilo kaaliya banaanka aan joogno nina wuxuu yiri subxaan casaa wajalla wuxuu yiri maxal dhahaa turkayga wuxuu yiri taangiyada turkay raga isku dhigaya siro afka ka qabtay ma fahmi marka idinkana kaaliya sidoo kale yeela turkay dad dhargan oo wax waay weligood 30 sano dagaal ma ku jirin macnaa dad oo inqilaab raadinayeen ay ahaayeen laakiin dadkan maskiin iyaga baaba'san 40 sano oo dagaal ku jiro oo ilaahu xabada meel naga saar ummadda dhan ay ku dhamaato ku jiraan haddana kaali ad ku waanne kaali soo baxay kaali taangiga afkiis aan isku dhigno qoriga afkiis aan qabano waxaas wax oo nin madaxweyne soo ahaa jiro oo ku talin jiro dadka inaas faro nabad iyo deganaasho iyo fari jiri oo maantana asaga ku boorinaya in rabsh la sameeyo horta waa macnaa nasiib darro waay aqoon yar nasiib darro ma aqaan iyo wixii kala soo raacay la mid tahay marka ha ahaatee saas tii kaleeto labaad qofku mucaarad waa noqon karaa waxa ku noqonaya mucaarad wax wadanka khuseeyo wax adiga ku khuseeyo mucaaradka maanta jira waxay yihiin waa iska hadal wax bay iska dhigayaan haye Kenya sana Kenya maxaa loo waxeena Kenya dariskeena waa la soo dhaweey Kenya ka shidinta dhab waa qaarad markii loo hadlo wadan iyo wadan waxa gaab laga xigsanaa mucaarada waxaas mucaarad lama dhaho haye nin kale carab oo casiir suu cawaay oo shilinkaas inuu macna Soomaaliya kor ay u kacaan rabin warkiis in la buunbuuni oo mar walba dawladda loo hortimaad imaaraadka Soomaaliyeed Soomaaliyeed waxaas mucaarad la miiraad anagoo naage oo guriga joogno waxba kala ogeynaa wax walba fahamsanahay ma fahmeen laakiin waa ninka $1 milyan la siinaa waxa leeyahay Soomaaliya degan iyo kicin booskeeda la ku haay mar walba saxiir suuji Soomaali saxiir juuj ahaato caalamka la qabsan shidaalkeeda yaa loo qodin iyaba horumar arkinba marka taas ilaahay xaqiisan ka sugeena ilaahay raalmaka aha xaasidnimo waa carabta iyo Kenya weyn xasdaayaan alxasad ma yaslax ma fiicna baxaasidka sidiisa ma liibaanaba ma fahmi ummadan soo adeegsanay iyagan sidoo kale xaasidiin waa sababtoo maxay xaasid ku yihiin waxay xaasid ku yihiin bax walaalkaaga soo dil intaasoo malin ku qaadanooyin dhinac Kenya naga haysad dhinac shabaab naga haysad dhinac badii ay gateen as madaxweynaha ka dacwoonaya as macna u xarbinooya war adi horta mucaarad naqay maxaa ku tahay mucaarad ma naqi kartiin kulli shaqada waa soo aragteen wax walba waa soo sameeyeen xukunkiina waa la soo arkay xamar dawladda xamar inay ka baxdo waa diiday dawlad ma ilaa iyo maxay dhahan galmudug gaari jirtay ilaa iyo adduunyada geeskeed gada iyo garbahaare dawlad ma tagi jirtay ilaaha nagu dhaariyay Soomaali weyn ee adduunka oo la socotiin wax walba waa ogtihiin heerkaas ma gaari jirna anaga waa maya
marka xalay tool wixii dhaca waa arkaysan ilaa banaanbax shacbiga aan isku soo bixinaynaa ninkan inuu dhacsan yahay aan ka hadlaynaa ninkan marka shisheeye kalkaalnimo ma fiicna shisheeye in loo adeego ma fiicna hadda markii sheeko bad ay noqoto ama dhulkaaga la xoogaayo waa markaas waxaa la rabaa inaad magac soomaalinimo aad kusoo istaagtid markase iyo isku duuban yihiin idinkan inaan isku duubnaan annagana aan isku duubnaan laakiin aabahe nin oo badii hoos ka gatay aa kula noole oo macnaa labada kuma qaata shaati la tolnaa war shaati maxaa dhulkaagiyaa gadanoosaa sumcad darra iyo darajo xumo iyo nasiib darraa ku haysato wax aad shaatiga iyo surwaalka aad xirantahay waxay yihiin malaha maanta hadda waxaa la yidhi ha bixina banaanbaxa naga daaya corona jiro ha ahaat corona yeeba jirinba wixii macnaha soomaalinimo markii loo hadlo banaanbax waqti kalaa ka badan insha allah oo loo banaan bixi karo ninkan madaxweynaha ee murugta haysata iyo barbaleenka haysta asiga tiisaaba haysataba waana wax loo wada jeedo waay wax oo macnaa lalaalaab iyo waxaas ma jiro maasha allah madaxweyne maskax leh aqli leh adduunka la qabsado oo banaanka wax kusoo arko cariiri soo arko wax walba soo arkay hadduu ilaahay nasiibkan ka dhigi anaga maxaa tashwiish intaasoo meel maray been ka sheegaan waxaa la ciidankii waxaa loo diray Ethiopia waxay jiraan dagaal loo diray 3 ku askari waxaan macno lahayn intaas waxay rabaan inay iska hor keenaan shacabka iyo nin gardar shacabka iyo dawladda nin gardar ma guuleys Soomaali hore u tiri hadda warkatii waay shalay daraad dhan waxa la dhahaa soo bixin maanta way soo bixin kala cararka ka dhacay adduunyada ilaahay waa aragtay inta ay wateen waa aragtay wiil dhalinyaro oo intaasoo qori haystaan iyo hub wataan wax yar oo macna horeba aan soconayn fahmo asaga naftiis ka jecel Soomaali way dhamaatay nin dagaal roomal iyo afar naago oo iyagan sidii daraad amal oo beenta ka sheegay dawladda maxaa loo kala cararay ilaa ay ka xaqay u socdeene Soomaalinimo u banaan baxayeen hadday dulmi ay wadan qeyr muxuu cararay wax yar idinka maqashiyo waxyaalaha oo qeyr iyo heblo Cabdishakuur ay sameeyeen kolkii ay carareen kadib insha Allah daawasho cararka kala cararkii Soomaaliya hal iska daaya qabiilka iyo buuqi isturbad ummadan hadda maanta waxay ku orkacsanayeen ragga maanta aan soo aragnay inay qabiil macnaa dadka ku kiciyaan laakiin Soomaali maasha Allah way ka ilbaxeen wayna ka akhliyeysteen inuu qabiil wax batareen way ogaadeen qabiil ma shaqeeya qarar aan ku socon insha Allah marka raggan oo maanta isbaabiyeen oo kaligooda kala cararaay ilmaha yar markay xabadaha ku fureen kii gacanta jugka gaartay iyo kii jilibka jugka gaar war adigoo waxaa soo jug ay ku gaarnaab tartiib lagu yiri guriga iska joog naga dhaaf bal si tartiib oo hoosaad ina ku xayshin idinku waa kibreysiin macaaradku waa kibirsan yahay wuxuu rabaa macna dawladda shisheeye inay soo dhaxgalan si lagu yaqiin nin walba meel Shariif Sakiin suu carcarray meel uu fariistay calaasha wuxuu ogaaday inuu waxa wadwado riyada uu ku jiro inay ka soceyeen farmaajo dhinaciisa marka daawasho wacan maanta si loo jajabile indhihiina ku arki doontiin kii lugta ka hawlmi iyo kii gacanta ka jababa daawasho wacan waa kaasee dhaawacyada waa lagu soo calaamadeeyay dhibka gaari waa ka xumahay Soomaali waa inay isku soo dhawaadaan ee tartiib u wada hadlaan ee wada heshiiyaan aa ka sii fiicnaa lahayd intii carar iyo dawladaha macna caalamka oo istutusaysiin oo saa isku baabiinaysiin wax laga yaqiiqayoodo waay waxaan oo kale wax laga xishoodo waay koodhe laakiin Soomaalida ma si kale u fahmaa ma aqaan nin walba anoor wuxuu ka raadsanaa dadka dibadaha jiro saana lagu sameeyay war inta lagu sameeyay inta aan lagu xisaabin adiga ma dad xisaabist ka hor ma adinka deganaash wax ku raadisiin kibir wax ku qaaday mal tan labaad ninka madaxweynaha ay macna oo maanta saaran waa la ogaa waqtigiisa waa dhamaaday hase ahaatee dawlad ku bedelmayso malaha
ilaa iyo dowladdii oo asaga bedeli lahayd uu ka dhiso wuxuu ku qasban yahay inuu saanoo kale u saarnaado idinka tiyaa kasoo horjeediin waa baxay waqtigiisiyaa dhammaaday hor u soco ka deg muxuu ka tagaa meel banaan buu uga tagaa maya baarlamaanka dad bedeluu rabaa madaxweyne dad bedelaa la rabaa wixii dhan macnaha inaa meeshiis kasoo qaada shalay inaa meeshooda asagana asgeeye aa laga sugaa wax anagoo hooyooyin oo guri fadhino oo fahmayna idinka aad diideysiin hadda aniga wadanka aan joogo ra-iisul wasaarihiis waqtiga waa ka dhacay waa ka dhammaaday waxaa la yidhi wallahi shacbigaa soo istaageen asagoo waqtigiis inuu dhammaado uu ogyahay uu baxay waxa soo qaato waxaa sidaan shaqada waa ii dhammaatay waana ka tegaa boqorkuu u tegay waa laga diiday wallahi shacbiga baarlamaanka intay fadhiistay waxaa la saaxiib meel aad u dhaqaaqi kartid malaha la yidhi ilaa wadankaa aad doorasho gaarsiisid oo doorasho kale ee dhacdo kii adiga ku bedeli lahaa uu ka yimaado waana xaq waana xaajo oo dastuuri ah oo caalamka dhan uu ku dhaqmo idinku wixii oo runta ahaa dhanaaba inkireysiin farmaajo wuxuu sameeyey dhanaaba inkiroosiin maxaa u xasdeysiin walaalkiin soomaaliyeed maxaa u xasdey xamar hadday dhisanta soomaaliya u dhisantay ma farmaajo u dhisantay waxaan la yaabanahay ra'yiga raqiiska aad la wareegaysiin oo mucaaradna aad ku sheegaysiin marka waxaan leenahay ilaahay nii cafiyo annagana waxaan leenahay insha allah waxaan rabnaa nin nadiif ah oo dowladiisa nadiif ah oo diinta iyo dadka shacbiga wax ku taro oo maxaa la dhahaa ummadda aan dhaceynin oon bada gadaheynin buuraha naga gadeynin oo mustaqbalka ilmaheena ayatiinkooda damba meelay ku noolaadaan ninka gacanta noogu celi lahay jareer oo aad nagu gadeen dhulka dhan jareertaad siiseen badii waa siiseen wax walba waa siiseen boob beri iyo beri dambaa la dhimanaa ma la dhahaa nin wal waqtigu dhimanaa ilaaha og ilmaha soomaaliyeed intay ku noolaanayaan marka waxaan ilaahay ka baryeynaa xumaan mucaarad aan u qaban ma jirto madaxweyne farmaajo asagana bini aadan waay laakiin wixii oo asaga aan ka aragna aan asagana ku xukumeynaa insha allah waxaan jecelnahay madaxweyne fiican inuu asagana gaarsiiyo suga 2 sano ka hor mucaaradnimo bilaawday mucaaradna maana war oo bilaab macnaho cusbo aan lahayn dhadhan aan lahayn mar walba badakh saasuu sameey farmaajo badakh meel u socday meel kale ma laha shishay adeegnimo nin facaga ku soo adoonsaa ku soo adeegsana berin u saa wallahi bilaa cagaha ka tumaa marka gumeysniga yaqaan kale aan waqti la gumeysta ma arkine laakiin wixii aan filmaanta iyo adduunka aan ka aragnay intaas aan noogu filan marka hadduu yiri dowlad kale intay ka gaarayso war asaa hadduu qaldan yahay caalamkaa laga soo hadli lahaa qaramada midoobe idinku dhex jirtaa og in macnaa ninkan uu ku qasban yahay inuu doorasho oo macnaa oo dad kale uu gaarsiiyo oo asa bedelo taasna waa ku saxsan yahay meel bayna ka jirtaa insha allah asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha badan waxa waaye wixii khayrka ku jiro allah na waafajiyo haddii farmaajo khayrkeena isku jiro allah noo soo noqo haddii macnaa wax kaloo kasii fiican aan heli karnane ilaahay allah noogu bedelo insha allah toobad iyo tawxiidka allah nii waafajiyo dulmiga aad ka talinaysiin habeen iyo maaline wax fiican maaha qofka waxaa la yidhi gaalka dilaa lagu yidhi dhiiggiisa gal laakiin garta is leeyahay sii farmaajo xaqiisa siiya mucaarado farmaajo xaqiisa uu ogolaado insha allah intaasaa idin dheheyna anaka haddaanahay hooyooyinka soomaaliyeed welcome to farxiya jana hana iyo arkina si qaldan insha allah welcome to farxiya jana waxaan ka hadlay uun waa ra'yigayga qaaliga ah insha allah adna waa igu diidi kartaa ama waa igu raaci kartaa nin walba waa ra'yigiisu inaan ku hadlana waa wax jira inkastoo uu maanta farmaajo diida in ra'yiga laga hadlo welcome to farxiya jana